السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeenii maxay kula tahay. Maalin dhaweyto anigoo TV-ga ka daawanaya wararka Jazeera ayaa waxa soo galay nin boqora oo ka mid ah boqorada Khaliijka ugu lacagta badan. Isagoo soconaya bandhig ayaa waxa daba socday inamo uu dhalo oo boqora ah. Gawaarida soo dhaweynaysay lacagta xalka muuqatay iyo nimcada muuqatay wax cajiib ah oo caqliga aan galaynin. Anigoo daawanay oo la yaabsan soo dhaweynta la soo dhaweeyay ee niyadeyda waxa ku soo dhacay alla wuxuu Ilaahay dadkan uu nimcad u siiyay. Wuxuu awood iyo power u siiyay. Talow maxaa noloshooda ka maqan ama ka naaqisan. Kulliba noloshooda way dhammaystiran tahay. Waxa niyadeyda ku soo dhacay waa maxay dadkaas oo kale waxa ka cadhaysiin kara hadday lacagtii iyo awoodii iyo powerkiiba ay gacanta ay ku hayaan. Anigoo sida u fakaraya ayaa markiiba niyadeyda waxa ku soo dhacay aayad an jimco kastaan akhrino oo ku jirta suuratul kahf. suuratul kahf aayadaas waxay leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. macnaheedu waa maxay ilaahay wuxuu leeyahay ubadka iyo lacagtu waxa weeyaan quruxda adduunka laakiin waxa ka qaalisan ee idin hadhaya idin ajar badan albaaqiyaatu الصالحات waa maxay waxa weeyaan subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. afartaa kelmadood ayaa ka qaalisan oo kuu hadhaysa oo ka macno badan oo ka ajar badan inaad noqotid boqor lacag iyo adduun haysta oo ubadiyo boqoro ay ka daba socdaan aad dhashay oo aad ku faanaysid. way ka qaalisantahay awoodda lagu dhibay awoodda kursiga iyo wax kastoo adduunka aad haysatid. nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii Israa wa Micraaj uu cirka u tagay ayaa wuxuu la kulmay nabi Ibraahim calayhi salaam. nabi Ibraahim baa wuxuu ku iri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa Muhammad aqri ummataka minni salaam wa akhbirhum inna aljannata tayyibatu at-turba cadbatu al-maa wa innaha qiicaan wa inna ghiraasaha subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. wuxuu ku idhi yaa Muhammad ummadaada igu salaam waxaanad ku tidhaahaa inay jannadu dhul wacan ay leedahay biyaheeduna ay macaan yihiin waana dhul lagu talagalay in wax ku baxaan ama wax laga beero geedadka ka baxana waxa lagu beeraa subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. albaaqiyaatu الصالحات afartaa kelmadood ilaahay magacaasa u bixiyey sababta ugu bixiyeyna waxa weeyaan wata kuu hadhaysa markaad dhimatid ee kaa hadhaysa adiga wata ajarka kuu noqonaysa yowma alqiyaama ee xasanaadna kuu noqonaysa ee kuu hadhaysa. adduunku wuu tegayaa qasaradu way tegaysaa oo waad waayaysaa lacagta ubadka wax kasta waa la waayaa laakiin ta kuu hadhaysa waxa weeyaan albaaqiyaatu الصالحات. waxaanay tahayna dikriga qura ee samada lagu amray nebiga inuu ummadiisa u faro isagoo samada 7 jooga ayuu ilaahay ku amray ama uu faray nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu ummadiisa u sheego dikrigaas. haddaba aan ka dhigano albaaqiyaatu الصالحات wird maalin kastaan odhanayno inuu yaqiin inugu jiro iyo iimaan inugu jiro inay ka qaalisan tahay oo ka awood badan tahay oo ka power weynto ka ajar badanto ka qurux badanto ka fiican tahay adduunka iyo dhaldhalaalkiisa iyo quruxdiisa iyo lacag kasta iyo power kasta. maxay idinkana idinla tahay? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.